waxaan qabaa hal su'aal baan qabaa halka su'aalaan qabaa waxa weeye waxa tiri Soomaaliland quruxdeeda ayaan doonayaa inaan ka qayb qaato adiga oo ka soo jeeda beeraha darafyada ma waxa quruxdeedu iyo quruxda xisbigaaga ma ka aragtay inaad adigoo garaadkaaga maqan yahay dalka quruxdiisiina inaad u keento ay ku jirto iyo in uu competition kala dhaxeeyo nin ay ilmaadeertiino Saleebaan xagla toosiyay inaad labadaa soo afjari weydo aad berbere iyo burcoon ku meeraysato gudoomiye maxay kula tahay su'aal aad u faahsan eeg horta tagaraadka annaga su'aalo kulbi weydiinaya shaayikeen horta tagaraadka marka hore garaadku marka shaqadan aynu hadda wadno ujeedooyinka aynu u wadno waxa weeye inay weydo su'aashaas inay soo xidhanto oo dad ay xidhanto dalkan lama wada leh oo ay xidhanto waxba la isuma ogola horta waa taa marka horta waxa la yiraahdaa digaagadda iyo ukunta keebaha horeeyay ma ukunta hor dhalatay mise digaagadda hor dhalatay marka inaan horta Soomaaliland dadka tusno inay tahay dal ee aanay ahayn maxaa la yiraahdaa qabiil baacid walba aan kaga gareel karaa marka taas waxaan rabnaa inaanu markaan tusno taa jawaabtu dadka kale xaggooda ku maqnaanaysa marka cid maalinta naga maqnaanaysa maalinta Soomaaliland annaku aanu ka mid noqono oo dadka deegaanka aad sheegtay ay fadhiistaan dhinacooda dalka taladiisa garaad iyo caaqil dalkan ka maqnaanaya ama ka maqnaan kara ma jiro marka intii aanu ku meeraysan lahayn maalin walba inaanu juhdi gelino qof gaar oo lala hadlo shakhsiya waxaanu go'aansanay in talada dalka dhexdiisa aanu ka raadino aanu markaa u yeedhano shakhsiyaadka naga maqan hadda waxa naga maqan waa shakhsiyaad taasi waa taa ta Saleebaan waa run waa nin aanu isku ardaa ka soo jeedno laakiin anigu waxaan jeclaan lahaa in 3 iyo 4 iyo 5 kale oo Saleebaan xagla toosiyay ila tartamayaan oo aan isku deegaanahay waayo dimuqraadiyadda aynu doonaynaa waa taa waayo hadda 14 urur baa halkan maraya oo maanta berbera waxa ku xaadira 14 urur 14 ka urur aniga iyo Saleebaan xagla toosiye iyo ururka hadda inoogu xiga cida Hilaac Dr. Samat baa taraxna inta kale waa marka say u tartamayaan baan u tartamaynaa annaguna marka waa intaas weeye taana saasaan oran lahaa aad iyo aad baad u mahadsantihiin aad iyo aad su'aalaha gudoomiyaha weydiinaya labadaas su'aal waxa weeyaan gudoomiye sidaad og tahay Soomaaliland 30 sano ee imika jirta walina ictiraaf ma hayso oo qodob muhiim ah asaasi qodobka maxaa kaaga meelo qodobka waxa weeyaan sidaad og tahay dalkeena 80% ama 70 dhalinyaradu waa bilaa shaqo qodobkaana maxaa kaaga meelo labada su'aalood weydiinaya waa laba su'aalood oo fiican qodobka ictiraafka horta marka hore ictiraaf waxa keena dadka u dhashay markay mid yihiin dadka u dhashay markay mid yihiin qalbiyan iyo jimsi ahaanba markay mid yihiin horta waa ictiraaf koowtaynu ka bilaabaynaa waa taa inaynu dalkan midayno si aynu fariin midaysan caalamka uga doonanno labo maalinta aynu fahamno innagu inaynu gacanteenna ku dhisanno dalkeenna oo innagoo aynu wax qabsanno caalamku waxbuu inoogu darayaa 3 aniga ayaa raba inaan hormuud u noqdo haddii ilaahay idmo oo aanu ku soo baxno xisbinimada in aanu albaab kastoo caalamka kuwii shalay la dagaalamayay Soomaaliland ee diidanaa iyagoo ay nala socdaan ee aad tuumayseen reer bari iyagoo ila socda inaanu caalamka ka iibino Soomaaliland maalintaasaynu qiimo yeelanayno arrinta dhalinyarada waa run wataan hadda ka hadlayay dhalinyaradu waa bilaa shaqo laakiin dalkeena shaqa taala waxay u baahan tahay kaliya in loo fakaro waddankeenu wuxuu ku yaalaa meel istiraatiijiga magaaladan berbera meesha ilaahay dhigay waa meesha caalamkan maanta la isku dilayo ee la isku haysto kale cid heli kartaana ma jirto intaan meel kaleba la aadin berbera u tusaale ah waxaynu rabnaa inaynu qaaradan Afrika dhinacan inaga xigta
inaynu servicekeedii halka ka samayno berbera inaynu dadka caalamka ee maalgashadayaasha ah ee dhaqaalaha haysta aynu maalgelin ku soo jiidanno inaynu samayno dhul iyo maaragtay waddan free ah oo loo qoondeeyey warshadaha in ay yimaadaan oon cashuur laga qaadin dhulkana free loo siiyo si ay dalkeenna u maalgashadaan haddaan 300 200 oo kambani keenno waxaa shaqo u abuuri karayaan in ka badan 3 milyan oo qof mana hayno waxay noqon doontaa marka inaynu bannaanka keensanno dal inaga badan baynu haysannaa waxaa la rabaa inaynu caalamka un soo jiidanno shaqo abuurkuna innaga gacanteennu ku jira meel kale laga dooni maayo waa inaad intaa ogaataan resourcekeennaa buuxa shidaal xoolo dekedo kalluun wax walba keliya waxaan rabnaa inaynu dalkan berbere inaynu caalamka isugu keenno dhaqaaluhu halkaasu ka abuurmaya imaaraadku waa 800 oo kun oo qof dalka dhan ee imaaraad 1 milyan ma gaadho dubay keligeedna 9 milyan baa ku nool hal 9 milyan qof kastoo ka mid ah 24 saacadoodba qofka muwaadinka ah jeebkiisa wuxuu ku ridaa in ka badan $270 bal qiyaasa marka 9 milyan oo qof maalin walba jeebkaaga ay ku ridayaan $270 macnaha waxa weeye caqli bay keeneen service wax la yiraahdo diyaariyeen dalkoodiina ugu ammaan galay ummadii caalamka joogtay caqligii iyo dhaqaalihiina ay ka faa'iideysteen maxay inaga inoo diidaya waxa fulin kara waa dhalinyaro inay dalkan u fikirto taladiisana gacanta ku qabato sidaa baan dhaqaalaha ku soo dhisaynaa dhalinyaradana shaqo uga abuurana haddii damka Ilaahay ka dhigo aad baad u mahadsantahay السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لما waxaan salaamayaa waftiga ururka Waaberi gudoomiyaha gudoomiye ku-xigeenka labaad iyo gudoomiye ku-xigeenka saddexaad ee ururka Waaberi su'aasheedu waxa weeyaan ma soo koobay waxay noqonaysaa waxa horta reer Berbera ahaan anagu waxaan doonaynaa dad mabda doona baan nahay ima nihi dad oo shakhsi doona si uu gudoomiyuhu sheegay marka waxa aanu doonaynaa in halka waxaad kaaga muuqata hospitality-ga gudoomiyaha saddexaad ee ururka ayaa sheegay inuu wanaagsan yahay sawir bay siisay sawirkaas waxa uu ka turjumayaa Berbera inay tahay magaalo qoomiyadaha Soomaalida oo dhan ay leedahay oran maayo qabiilada Soomaalida oo dhan waa magaalada qoomiyadaha marka waxa weeyaan waxa aan doonaynaa ka urur ahaan sidee ayaa doonaysaan inaad gobolada bariga uga mid dhigtaan gobolada galbeedka Soomaaliland alaan lahaa ninka su'aasha ay weydiiyey maanta inay maqlayaan dadka bari jooga horta dalka meel walba ka mid ihi waxay leedahay resource iyo nimco Ilaahay siiyey gobolada barigu waa run way ka dambeeyaan xagga dhismaha iyo infrastructure-ka waddanka intiisa kale waxaanu rabnaa inaanu ku soo gaarsiino taas horta kow inay si buuxda uga soo mid noqdaan hayaankan dawladnimo iyo dhaqaale ee Soomaaliland kale ku talaabsatay taasaan horta ka bilaabaynaa ilaa haddeer dadkii baa kala qoqoban marka taas horta waa qodobka labaad ee kale aanu ka raadinaynaa waxa weeye in aanu dhaqaalaha waddanka waad ogtihiin ceelasha kaliya ee caalamka laga aqoonsan yahay inuu shidaal ku buuxo waxay ku yaalaan gobolada bari ilaa iyo inta dhulkeena la baaray ceelasha shidaal lagu hubo waxay ku yaalaan bari dalkan waxaa ku jira gobol la yiraahdo Sanaag oo wax allaale iyo wixii bini'aadamku ku noolaan lahaa Ilaahay isaga dhigay laakiin wadooyin iyo infrastructure la'aan ayay waxaas u xaniban yihiin haddii Soomaaliland aanu doonayna ay guulaysato gobolada bari infrastructure-kooda baanu kor u soo qaadaynaa mujtamaca reer Soomaalilandna waa ku soo daraynaa resource-ka yaalana Soomaaliland oo dhan baanu rabnaa inaanu uga faa'iideyno maaha iyaga kaligood marka sidaas aan kaga jawaabi lahaa su'aasha aad iyo aad baad u mahadsantahay